musharax madaxweyne ku-xigeen cali xasan taakow ayaa maanta kormeero ku soo maray cisbitaalka guud ee magaalada jowhar goobtii uu ka fatahay webiga shabeelle iskuulada magaalada iyo goobo ay ku sugnaayeen ururada naafada gobolka iyadoo musharaxu guud ahaan goobaha uu booqday dadka danyarta ah ee ku noolaa uu gaarsiiyey lacago deeq ah oo musharaxu uu ugu talagalay haddaba waa kuwaana qaar ka mid a dadkii uu la kulmay musharaxa madaxweyne ku-xigeen cali xasan taakow musharaxiinta qayb ka mid ah uu hogaaminaya musharax cali xasan taakow asagoo kormeer ku soo sameeyay bukaanada jiifa isbitaal gobolka shabeellada dhexe kaasoo ah isbitaal u adeega dhammaan celcelis ahaan bukaanka soo maray isbitaalka bishii wuxuu gaarayaa 4500 musharax madaxweyne cali xasan taakow waxaa marqaati ma doontaa cali xasan taakow oo ku magac dheer cali geeley waa inuu yahay musharaxii ugu horeeyay ee yimaada xafiiska naafada guud ee gobolkan shabeellada dhexe runtii aad iyo aadna uga mahad celinayna madaxweyne gaar ahaan mudana waxaan qalab ku sheegaynaa dadka waa baahan yahay shan xilli uu soo baahnaa beertoodiina waa hadda waa qoyan tahay xilli roobaa lagu jiraa hadda roobka hadduu yimaado tacabkiiba haddana ayaa nasiib ah sidoo kale musharax cali xasan taakow ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerkiisii maanta uu goobo fara badan ku soo maray waxa uuna musharaxu sheegay in haddii la doorto uu guud ahaan goobihii maanta uu soo maray oo dayacad ay ka muuqatay uu wax badan ka bedeli doono murashax cali xasan taakow murashax u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka loo sameynayo hirshabeelle saakay waxaan kormeer ku soo marnay meelo kala duwan oo magaalada ka mid ah taasoo ugu kuurgalaynay magaalada waxyaabaha ka jira waxaan soo marnay ugu horreyntii soo booqanay isbitaalka ugu weyn magaalada waxaan ka shaqeynayaan ku soo aragnay rag dhalinyaro ah oo runtii dhaqaatiir ah oo ka shaqeynayaan oo ummadooda u adeegayaan inta waxaan ku soo aragnoo kale dad bukaano ah oo aad u tiro badan iyo haweenka oo sidoo kaleeto runtii meeshoodu ay aad u buuxday waxaan leenahay ilaahay ha noo caafiyo mar kale waxaan soo booqanay qolada cuuryaamiinta amba naafada joogta magaaladan jowhar gobolka shabeellada dhexe runtii waa dad badan oo naafahan soo aragnay oo aad u tabaalaysan waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inaan maaragtay diiradda saarno sidii dadka danyarta wax loogu qaban lahay sidoo kale waxaan soo booqanay iskuullada magaalada ka mid a sheekh xuseen cadde dugsi hoose dhexe sare waaye waxaan rajaynaynaa inaan waxbarashada iyadana sidoo kale wax ka qaban doono oo aan meelaha taargetka noo ah waa waxbarashada haddana meesha aan joogno waa buqdii bir dhaweed fatahday oo dadku ku dhinteen in webiga fatahaadihiisa la xiro oo buqaha lasoo afjaro oo wadankan loo bedelo horumar iyo barwaaqo lagana soo saaro webiga khasaaraha kale aan ka qaadanay aan barwaaqayntiisa u bedelno waxaan rajaynaynaa maamulka markaan ku guulaysano waxaan samayn doonaa ciidan uu leeyahay maamulka hirshabeelle ciidankaasoo ah ciidan ka duwan midka hadda jira ismaaciil cabdulle sabriye universal TV jowhar